kuwanu waa farcankii nuux wuxuu ahaa nin xaq ah oo ku eedla farcankiisii nuuxna ilaah buu la socon jiray oo nuux wuxuu dhalay 3 wiil oo ahaa sheem iyo xaam iyo yaafeed dhulkuna wuu kharibnaa ilaa hortiisa dhulkana dulmi baa ka buuxsamay ilaahna wuxuu arkay dhulka oo baleeg wuu qarribnaa waayo intii jidh lahayd oo dhammu jidkooday ku qarribeen dhulka oo ilaah wuxuu nuux ku yidhi intii jidh leh oo dhan dhammaadkoodii aan dhammayn lahaa ayaa gaadhay waayo dhulkii waxaa ka buuxsamay dulmi iyaga ka yimi oo baleeg iyagaan dhulka la baabi'in doonaa dooni ka samayso qoryo gofer ah qowladana ka dhex samee doonida daamurna ka mara dusha iyo hoostaba waa inaad sidatan u samaysid iyada doonida dherarkeeda waxaad ka dhigtaa 300 oo dhudhun ballaadhkeedana waxaad ka dhigtaa 50 dhudhun sarajooggeedana waxaad ka dhigtaa 30 dhudhun waa inaad dariishadana u samaysid doonida oo waxaad ku dhammaysaa in dhudhun ah ilaa xaggeeda sare albaabka dooniduna dhinaca ka samee dabaqadda hoose iyo tu labaad iyo tu saddexaadna u samee iyada oo baleeg anigu daad biyo ah waan ku soo dayn dhulka inaan baabi'iyo inta jidh kale oo dhan oo neefta noloshu ku jirto inta samada ka hoosaysa wax kasta oo dhulka joogaaba way dhiman doonaan laakiin axdigayga adigan kula dhigan doonaa oo doonidaad soo geli doontaan adiga iyo wiilashaada iyo naagtaada iyo naagaha wiilashaada ee kula jiraba oo wax kasta oo nool oo jidh leh waa inaad cayn walba laba ka soo gelisaa doonida si ay kula sii noolaadaan waana inay ahaadaan lab iyo dhidig haadda caynkooda iyo xoolaha caynkooda iyo wax kasta oo dhulka gurguurta caynkooda cayn walba laba ka mid ahi ha kuu soo galeen si ay u sii noolaadaan cuntada la cuno oo dhan la qaado oo kulligeed ururso oo waxay idin noqon doontaa cunto adiga iyo iyaguba sidaasuu nuux sameeyey wax kasta sidii ilaah ugu amray buu u sameeyey